وليبان حسن oo sanado ka hor uga yimid Canada si uu wax uga barto Soomaaliya aragtida inuu wax ku barto dalkiisa waxa lahayd hooyadiis Marin Yusuf Urur balse waxay la kulantay caqabado dadka inta badan aniga ilaa uma soo aadi jirin laakiin aabiis waxa la jiray hal wiil Ilaahay ku siiyay halkii wiil Soomaaliya oo wada waa laga dilayaa naagtan cunuga ka reebo anigana waxaa mowqif iska soo jiray wiilkaygu inuu jaamacad iyo master iyo wax kasta uu Soomaaliya ku barto ayaa iska soo jaray nasiib wanaag caqabadahaasi kama aysan hor istaagin in Liibaan ay keento Soomaaliya waxaana uu ka dhaxlay intii uu joogay waaye aragnimo iyo inuu wax ka barto dhaqanka Soomaalida maadaama uu qurbaha ku dhashay ani hadaan ka hadlo imaashadeeda ugu horaan ma qof oo ana ahay qof oo dibadda ku soo karay imaashadeeda anqabado badan ayaan la kulmay waxaan arkay waxyaabo badan oo experience-ka ii kordhiyay oo aqligayga ii ziyaadiyay hadnaba joogitaankeygana Muqdisho aad ay ku faraxsanahay asxaab badan ayaa yeeshay waxyaabo badan oo waaya aragnimo oo ay soo kordhen hooyo Marin Yusuf Urur sida ay ugu taamaysay in wiilkeeda uu wax ku barto Soomaaliya si lamida waxa ku taagneed oo u qorsheysnayd goobta ay geen lahayd Liibaan si uu uga bilowdo waxbarashadiisa heerka sare jaamacadda Muqdisho waxaan ka arkay internet-kan ka arkay markasta waa raadi jiray muuqeeda iyo meesha ay ku taalo aad u cajib galiye marka imaadana waa soo raadiyay Muqdisho internet-kan hadana ka sii helan waana ku guuleystay Liibaan waxa maankiisa ka guuxayay inuu heerka koowaad ee jaamacadda ku qaato xiriirka caalamiga sidoo kale aan macna ayar waxa uu doortay aan markaa isfiiriyo ability-gayga aan meeshaas ka imaaday Ingiriiska aan ku hadlaa Faransiisna waan ku hadlaa sidaas daraadeed waxaan u arkay fursadooyin badan inaan ka heli karo IR hadaan ka dhigto jaamacadda Muqdisho Liibaan iyo arday kale oo xulatay barashada xiriirka caalamiga ayaa si wada jira u bilaabay waxbarashadooda balse sanadba sanadka ka dambeeya ardaydii la dhiganaysa ayaa u bedeshay qaarkood kuliyada kale halka kuwa kalena ay uga tageen duruufo kala duwan Cabdikaafi Xaashi Sheekh Farax oo hormuudka kuliyada dhaqaalaha iyo maamulka ee jaamacadda Muqdisho maxaa la international relations markii hore wuxuu kamid ahaa jiray kuliyada dhaqaalaha hadda dabcan waa laga saaray wuxuu kamid yahay kuliyada siyaasadda iyo maamulka guud ayuu kamid yahay laakiin xilligaas Liibaan uu bilaabay waxay kamid ahayd kuliyada dhaqaalaha marka sharciga jaamacadda ay wuxuu ogolyahay ardada in ay transfer sameey karaan maadaama ardada kuliyada dhaqaalaha dhigataahu labada sano horeeto ay maadooyinka ay qaataan isku mid yihiin in ardaygu uu bedelan karo hadii lacala uu isku arko markii uu xilligaas gaaro inuu takhasuskaas kale ku fiican yahay inuu dhinacaas kale u bedelan karo marka waxa dhacday Liibaan ardadii isku fasalka ahaayeen qaar badan oo kamid ah ayaa waxay doorteen takhasusaad kale u wareegteen tusaalaha waxaan xasuustaa qaarkood business administration u wareegsadeen qaar economics u wareegsadeen qaar finance bank u wareegsadeen marka dabcan Liibaan qof ay marka hore go'aan ay u ahayd inuu takhasuskan dhigto ayuu ahaa si mar la arag ah Liibaan kaligiis ayaa ku soo haray fasalkii jaamacadda taasi waxay walwal fara badan ku dhalisay hooyadiis Marin Yusuf Urur oo kolkii hore ku qanacsanayd sida uu eebe ugu suurageliyay fikradeedii marka ay joogtay Canada wallahi horta cabsi badan way ihaysay laakiin markuu jaamacadda kaligiis noqday maalintii ugu dambeysay waa imid jaamacadda markii aan ogaaday inuu kaligi yahay waa ku garabsiiyay waxa ay mowqifkaaga ka noqonin goolkaaga soo gaarid waana ku dadaalay yani maadaama uu different day ah maalin galab maalin habeen maalin subax maalin bixid si ahaayeen anigana waan dadaalay macallimiin fiican oo garab qabata iyo maamul fiican iyo dad fiican oo macallimiin waay anaga ayuu la kulmay Liibaan taasoo noo suurtagelisay inaan goolkan ku meeshan ku dhiganaano oo jaamacadda dhamaast waa wax adag in hal arday loo dhameeyo waxbarashada marka laga eego dhinacyo kala duwan oo ugu weyn tahay dhaqaalaha jaamacadda Muqdisho oo aan bilow u ahayn in hal arday ay u dhameyso daraasadda ayaa u ogolaatay Liibaan inuu sii wato waxbarashadiisa sida uu qirayo diiwaanayaha guud ee jaamacadda Muqdisho Dr. Maxamed Xasan Nuur hooyadii uu la yimid marka asaga hooyadii ayaa noo yimid hooyadii waxay tiri wiilkayga takhasuskan oo rabaa asagina wuxuu yiri waxaan rabaa takhasuskan jaamacadda marka wada kale oo formalay arday cusub hadda la qoray maaha arday jaamacadda heshiis la soo gashay oo takhasuskan soo doortay takhasuskan ku dhameynaya oo dhameysay jaamacadda maadooyinka qaarkood wuxuu la qaadan jiray meelaha kala duwan uu gaar u qaadan jirana way jiraan wadama alxamdulillah rabbil caalamiin adiga xilligiisa ay ku dhameystay 4 sano oo uu dhiganayay xiriirka caalamiga ah Liibaan waxa uu suura gashay inuu ka qalin jabiyo jaamacadda Muqdisho hooyo Maryan waxay dareentay farxad iyo qiiro maadaama wiilkeedii uu xaqiijiyay mid ka mid ah hadafyadiisa waa ooy
farxad waan la ooyey wiilkayga markuu dhalinayo 7 bilood ku dhashay dhicis ahaa wuu yaraa dhaluu ku jiray maalintaasaan xasuustay maalintuu jaamacadda dhameeyey uu keligii dhameeyey ee maalinta uu dhiciska ee dhalada la iga geliyey difran weyne u dambe maantaan waa ooyey maalintuu jaamacadda dhameeyna waa ooyey waa laba tallaabo oo muujinaya heerka kobaca horumarineed ee dalka in ruux ku dhiirado inuu wax ka barto dal ay colaado iyo dagaallo sokeeya aafeeyeen ugana yimaado dal ka mida kuwa ugu horeeya dunida maanta iyo tan kale oo iyana ifinaysa